Barnaamijka maanta bisiinkaan u qabanayaa. Barnaamijka maanta bisiinkaan u qabanayaa. Kii lagu baraa kii aan u baahanayn. Kii lagu baraa kii aan u baahanayn. Bulshadu ku badbaada barigay hanooga dhigo. Bulshadu ku badbaada barigay hanooga dhigo. Waa barnaamijkii talo iyo tusaale bilowgiisii qaybtiisa koowaad ayaa maanta noo bilaabanayo. Soo dhawaada qaybtaas oo ku bilaabanayo waa aasaaska qoyska halkuu kasoo bilowdo meesha gurigiisa ah qaabka uu kusoo bilowdo ayaan ku falanqeynayaa maanta hadduu Ilaahay ogolaado. Kala socdo qayb ayaan usoo qaadan doonaa laakiin qaybtan maanta waxaan u doortay maadaama barnaamijku uu bilow yahay inaan meesha hoose aan kasoo bilaabo oo labada qof oo aasaaska qoyska ah qaabka ay guurkooda kusoo bilowday qaabka usoo dhismay dhinacaasaan maanta ku falanqeynayaa inaan isla fahanno ayaan jeclahay insha Allah. Waa bilowgiisii sidaan ayuuna ku bilaabanayaa. Soo dhawaada dhammaantiin. Bismillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa Cafiifa iyo mar kale channelkeena Cafiifa Channel. Soo dhawaada walaalahay dhammaantiin. Jimco mubaarak ayaan idin leeyahay. Jimco kariim meel walbo aad joogtaan. Ilaahay cimri dheer iyo caafimaad ha idinku siiyo dhammaantiin ayaan idin leeyahay. Soo dhawaada mar labaad. Maanta waa barnaamijkeena talo iyo tusaale bilowgiisii. Asxaabteyda hore ila socotay idinka waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin la socodkiina iyo daawashadiina iyo dhiirigelintiina intaba waa idinkaga mahadcelinayaa. Jazakallah khayr ayaan idin leeyahay. Asxaabta igu soo biirtay sidoo kale idinkana waa mahadsantihiin. Jazakallah khayr. Asxaabta cusub idinkana soo dhawaada. Channelka subscribe dhaha gambaleelka furta hor u gala. Insha Allah Ilaahay idin barnaamijyo badan iyo waxyaalo badan oo cusub ayaan kusoo gudbin doonaa. Ani sida fikirkayga ama jecli yani waxyaalo oo hore loogu soo daalay iyo inaan idinla qaybsado oo hore loo soo arkay waxa fiican dee wax keenaysa inaa wax dadka ku cusub oo wax laga faa'iidaa aad keentid. Marka insha Allah channelkan wuxuu noqon doonaa waxyaalo inagu cusub sida badan sidaan jeclaa inaan iskula wadaagno. Kusoo dhawaada ayaan idin leeyahay mar labaad. Maantana waa barnaamijkeena talo iyo tusaale bilowgiisii qaybtiisa koowaad. Maanta qaybtaas koowaad waxaan kusoo qaadanayaa aasaaska qoyska. Marka kow lasoo aasaasayo halka laga soo bilaabay meesha gundhiga u ah labada qof ee guurka kusoo heshiiyey ee gurigaas dhisay ee reerka noqday meesha ay kasoo bilaabeen ayaan maanta ku falanqeynayaa sida aniga aragtidayda ah. Dad badan oo igu aragtiyana way jiraan dad badan oo naga duwanna way jiraan. Markaan maanta waxaan kusoo qaadanayaa labada qof sida bulshada badankeed ay ka aaminsan yihiin iyo sida qayb anigaba aan ku jiro aan ka aaminsanahay. Labada qof ee guurka kusoo heshiiyey ee guriga aasaaska u ah ayada waa bilowgii tusaale waa guriga marka la dhisaayo wuxuu leeyahay aasaas laga soo bilaabo oo kow dhulkaas oo dhagax lasoo geliyo lagu soo wareejiyo meesha laga soo bilaabaa weli gurigaas heer ma gaarin oo quruxdiisa ay soo dhammaystiranto ama wanaagii laga rabay ama muuqaalkii laga rabay uu yeesho. Marka guurkana waa sidaas oo kale halkaas uu kasoo bilaabanayaa. Labadan qof oo markaas soo heshiiyey ee guurka kusoo heshiiyeyna waxa ay ku soo heshiiyeen oo markaa isku soo qaabileen oo isku soo afgarteen. Bulshada sida badan waxay dhahaan waa jacayl. Marka meeshaas wax jacayl la dhaho kama jiraan mana ku jiri karaan. Marka labada qofood aniga aragtidayda waxaa waaye marka kow ay arrimahaas isku soo afgarteen waxooda dhanba waxay yihiin is afgarad
iyo heshiis waxay isku soo afkarteen maxay ahayd heshiiskaasna waa go-aan ayaga soo gaareen oo isla soo gaareen labadan qof ma ahan jecel waa go-aan iyo heshiis ay isla qaateen oo inay reer yeelanayaan guri dhisanayaan ay kusoo heshiiyeen waaye labada qof halkaasay kasoo bilaabeen oo ayaga baahi ay isu qabaan oo ay guurkaas kusoo heshiiyeen oo dad guur gala oo guri xalaala dhisto ay kusoo heshiinayaan meeshaas heshiiskaas una ka socdo labadaas qofood meeshaas marka hadalladaas isdhex marayaan oo heshiiskaas lasoo gelaayo oo lasoo guri gelaayo intaas oo dhanba wax jecel la dhaha ma jiraan waa is afgarad heshiis aa lagu socdaa marka dadkeena sida badan waxay ka aaminsan yihiin intay dadka banaankaas ay kala marayaanba labadaas qof qofkaas uu jecel yahay qofkaas uu jecel waa qofkaas uu rabaa intaasba waa rabitaan ay is rabaan labadan qofood rabitaan baahiyahooda ayaga ay is rabaan waxay isu sheegteen inay isguursadaan oo reer noqdaan arrintooda halkaasay ka socotaa ma ahan jecel marka dadkeena jeceela la iska aaminsan waxaad arkaysaa dad ku leh labadan qofood jecel isku soo guursadeen jecelka banaanka ma yaallo wax banaanka la iskula soo guursado oo banaanka iska yaalla ma ahan sida aniga fikradeyda ah marka labadan qofood isku soo aruuri waxay kusoo heshiiyeen guur iyo inay noqdaan qoys famil ah mustaqbalkooda meesha uu gaarsiiyo ayaga iyo ayaga se familkooda ay usii haystaan ay ku xiran tahay marka labada dhinacba waa dadaan is aqoonin laakiin inay shirka noqdaan kusoo heshiiyey qof walba qofka kale dhankiisa wuxuu ka yahay asagoo god mugdi ah gacanta geliyey horaana loogu mahmaaha guurka sidiisa waa god mugdi ah gacanta geli soomaalideena inta badan mahmaahayadaaba naga run ah marka horaaba loogu mahmaaha marka ma ahan jecel waxa banaanka la iskala soo raacay waa godkaa mugdi oo gacanta lasoo geliyey isfahamkaasaa la isku soo guursaday banaanka wixii ka ahaba waa isfahan dadkan markay soo guri galeen ka dambo muddo kadib in yar markaasuu jecelka wuxuu ka dhalanaya guriga dhexdiisa ma aha wax banaanka yaallo waa sidii guriga ayaga ay ugu beertaan haddii ayaga guriga ku dhex beertaan gurigaasuu ka baxayaa meeshuu ayaga u gaaro sidai ayaga u xanaaneeyaan siday u dhaqaaleystaan meeshaas uga dhex baxaya ma aha wax banaanka yaalla asaga waxa lasoo iibsanayana ma ahan waxa dad kale ay hadiyad kugu keenayaana ma ahan waa wax guriga dhexdiisa laga sameynayo oo labadaa qofood qaabka ayaga isula hadlaan isu qadariyaan isu xushmeeyaan intaasna wuxuu ku timaad ka horta is-xushmeynta isqadarinta qofka kala qadariyo xushmeeyo wanaagga ay isu haayaan bartaasuu asaga ah beertiisa u ka baxaya marka saas inay dadka u fahmaan in badan u fahamsana way jirtaa dhalinyarada sidooda badan waxay iska dhahaan jeceela la isku soo guursaday jeceela la isku soo guursaday guurka ka hor maba jiro jecel waa ka dambu ugu yimaadaa bartaasuu kasii baxaa waana sida ay u xanaaneystaan hadday xanaaneyn waayaan haddana meeshaas maba jiraayo wax isku daahayna malaha familkaas meeshaas uun ku burburaya laakiin hadday iyaga xanaaneystaan ay ayaga beertaan oo ayaga siday u waraabistaan ay tahay wuu u hagaagaya marka waa saas in loo fahmo marka maanta meeshaasaa nooga bilaabaya nooguna ekeenaya sida ay u beertaan iyo siday u xanaaneeyaan ay ugu baxayaan waana guriga dhexdiisa qaybta kalena oo sidii loosoo sii lahayn lahaa laisula sii afgaran lahaana waxaan kusoo qaadan doonaa jimcada dambe haddii ilaahay idmo ilaahay nafta nagu gaarsiiyo waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu